waxa ka sii daran wardagaal doorkoogii la laayay inay caroodaan inay bannaan baxaan iyo inay caroodaan iyo inay guriga jajabiyaan hadda kadib indhaha ummadoo dhan waxaa doonaya inay laascaanood kusoo jeestaan indhaha shacabka reer Soomaaliland waxaa doonaya in laascaanood indhaha lagu jeediyo in laascaanood la garab istaagay laascaanood mudan tahay ya booliska iyo hay'adaha amniga qaabilsan yaa laynaya dadka hadraawiya dilay hadaba ma dadkii koonfur galbeed iyo koonfur ka yimid ee digii midflaal ee laga raafiyay wadanka dilay nuumayda sheegay ma baaqi baa ku haray yaa dilay baan su'aasha ugu horeysay tahay waxa waajib ku ah inuu isagoo gudoomiyihii golaha wakiilada ah oo marka hore wax khasaaran yahay marka labaadna constituency laga soo doortay ay tahay gudoomiyaha golaha iyaga waxa waajib ah inaan dhacdada halka ka socoto la siiyay ilaahay walaalayaal waadi la tiiraayeysannahay waan idin la dareemaynaa in maad aragtay dadkii ciyaarta ahaa ee bulshada ahaa ee hal doorka ummadda u hayn maalin baa habeen inta mid la dilo haddana laba cali waxba iska weydiinin dilka foosh xun aad iyo aad baan idin kala tiiraayeysannahay aad iyo aad baan idin la dareemaynaa waxa isweydiin mudan oo xusid mudan in wax la iska weydiiyo waxa weeyaan maxaa keenay dilkan isdaba socda ee kaliya ta ku dhacaya maad aragtay dadka midakarka hal doorka waxay xogaal u nahay in ciidamada ugu badan ee qaranku gobolka ay joogaan uu yahay maxaa la yiraahdaa gobolka Sool uu yahay in ciidanka militarigu uu kaalin halkii ugu shisheeyay maalintii dhaweytay uu tagay iyo ciidankii bilayskuna maad aragtay uu magaalada gudaheega uu joogo waxay isweydiin mudan oo maanta u baahan in laga hadlo maalintii hore markii dadkii la raafayay Soomaalida koonfur Soomaaliya ka soo qaxay qaxootiga ah waan ka hadlay aad bay dawladdu ii baagtay heer waxa gaadhay la yiraahdo in abi kicin dadweynuhu sameeyay xildhibaanka la soo xiro eedan la sameeyay beena markaan idhi war dadka hadii la raafayo haday ma ka mas'uul yihiin dilkaasi gobol ka socda dil qof baa ka mas'uul dadkaasi mas'uul kama hayna qofka hal soo qabto hal daba kala soo hal keeno maanta inta dabadeed waxaan maanayaa in laba qof ama saddex qof dabadeed la dilay qolada iyaga waa la saaray oo way tageen waati subcad la direeyay ee leeydi laascaanood maanta ugu dambeysay cid buu wax dishay leeydi waxa weydiinayaa booliska iyo hay'adaha amniga qaabilsan yaa laynaya dadka hadraawiya dilay hadaba ma dadkii koonfur galbeed iyo koonfur ka yimid ee digii midflaal ee laga raafiyay wadanka dilay nuumayda sheegay ma baaqi baa ku haray yaa dilay baan su'aasha ugu horeysay tahay su'aasha labaad waxay tahay ciidamada halka joogay xooga ee maalin walba dhacdada dhacaysa an ma daragtay wax ribood oo ka soo baxay jir muxuu riboodkoodu soo bixilay intaan xaqan joogay dibadda ku baqlaana waxaan maqlayay in maalin dhaxal yiri dadka laascaanood ku leeyihiin baan warbaahinta ku arkay ayaa la qabtay waxaan isla maanta laascaanood bogsatay may bogsan maalintii dadka laga saaray bogsataan may bogsan wali xanuunka halkiisa ka socda wax la qaadan karana ma laba mid baa socota in la yiraahdo dadka aan la hoosaasin oo la yiraahdo anagu nabadgelyadiina mas'uul kama nihiin ay dukaas ku qaba oo de idinki yaalihiin deel loo kala tago iyana dawladdu mas'uuliyadeedii gudato amniga u qaabilsanayd oo xukuumaddu gudato oo ma aragtay hay'adaha amniga gutaan waa arrin bi kama dhibaan weey mana aha arrin ku dhamaanaysa mooyaan iyadoo walaalaheen nafta bilaadaka ugu qaalisan wax uu ilaahay ilaaliyay dhigiisa qof aan waxba galabsan oo aqalkiisii hor jooga oo masaajid ka soo baxay ama xafiiskiisii jooga oo dadkii madaxda kuwii maxkamadda la dilay kuwii doorashooyinka maamuliyay baa la dilay dadkii ciyaarta baa la dilay culimadii baa la dilay dadkii nabadda ilaalinayay baa la dilay sidii suurtagal ku tahay oo xukuumaddu maxay ku doodaysaa runtii arintaasi golaha iyagan xildhibaan laga soo doortay gobolka Sool ayaa gudoomiye u dooran waxa waajib inuu u saaro oo session ka qabto gaara arinta laascaanood waxa waajib ku ah inuu isagoo gudoomiyihii golaha wakiilada ah oo marka hore wax khasaaran yahay
marka labaadna constituency laga soo doortay tay gudoomiyaha golaha iyaga waxa waajiba inaan dhacdada halka ka socotaan la siiyay waa inuu guddi gaara oo soo baadha dilkaasi yaa sababa maxaa loo soo qaban laayay baa isweydiin mudan oo in la baaro u baahan dadka dilka geysta war baabil qofkii xadaa la soo qabtaa magaalooyinka kale Soomaaliland maxaa loo soo qaban laayay kuwa maxaa la yiraahdaa maxaa la saarood loo soo qaban laayay haday dadkii koonfurta ka yimid ay dad dilayaan shalay laas ceergaawo deganaa ceergaawo maxay dad ku dili waayeen kuma dilay waxa weey mooyaan waxa laga aqbalayo ma hay'adaha maanka wax laga aqbalayo ma taba wiilay in dilkii yaalay ee ninkii la dilay kuwa kale la dul dhigo oo dadka lagu dul dilaa taasaa ka sii xanuun kulul taasaa ka sii xun taasaa ka sii maadaragtay dhibaato iyo maadaragtay culays badan taasina wax la aqbali kara maaha war nille yaa i dilay maxaa la ii dilay adna waa ku dilayaa meesha ma qabato meesha ma qabato waxaan leenahay dhacdada booliska taliya boolisku waa kii daariga halkan igu hajabiyay halkan talahaade ilaa dadka leeyahay soo qabto intuu mucaaradka u jawaabiyo halkan u soo fadhiyo dadka ka qabto intuu inamada ciidamada booliska halkan joogay xildhibaanada la dagaalamaya ee maad aragtay dadka ku leeynaya jidadka dadka masaakiinta ku leeynaya halkan ha soo maalin walba in dharbaaxayo maalin walba xildhibaan kaarka haysta taa soo baaro ha keeno intuu kuwa maad aragtay taliya booliska oo Allah shaqadaas laga rabaa la saxano waa lagu weydiin doonaa yoom la yafaco maalin wala banan baa lagu weydiin doonaa dadkii halkaa tagay maalintii dawladda xukuumadda ha guuray dhamaantoodna maanta su'aal baa hortaala dadkii aad saarteen waa saarteen dadka yar leeynaya iyagana ugu dambeeyay baa weydiinaya